Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ku booriyay muwaadiniintooda inay si degdeg ah uga baxaan dalka Ukraine si ay uga fogaadaan duulaanka Ruushka oo ay ku jiraan weerar dhinaca cirka. Washington sheegtay Jimcihii inay dhici karaan waqti kasta. Maraykanka iyo Yurub ayaa sare u qaaday digniinahooda ku aadan weerar soo fool leh, halka Moscow ay ku eedeysay wadamada reer galbeedka inay faafinayaan been ay ku qarinayaan falalkooda gaarka. Ruushka ayaa in ka badan 10,000 oo askari ku ururiya xadka Ukraine, balse wuxuu Ruushku inkiray inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaado dalka yar ee Ukraine. Saraakiisha Maraykanka iyagoo cadaadis saaraya dhanka diblomaasiyadda waxay sheegeen in Ruushku uu soo duuli karo ka hor inta aan la soo gabagabayn ciyaaraha Olombikada ee qodobaha 20 February, lagana yaabo inuu isku dayo inuu qabsado caasimadda dalka Ukraine Kiev iyo magaalooyinka kale. La taliyaha amniga qaranka Maraykanka ayaa sheegay in muwaadiniinta Maraykanka aysan filan karin daadgureynta militariga haddii ay ku sii sugnaadaan Ukraine 48 saacadood ee soo socda. Australia iyo New Zealand ayaa iyaguna noqonaya dalalkii ugu dambeeyay ee ku booriyay muwaadiniintooda inay si degdeg ah uga baxaan dalka Ukraine.